geesiyada baarlamaanka hagaabinina geesiyada baarlamaanka hagaabinina waryaanay gaagixine hashaga wada gurula geeyiga Soomaaliyin gaardad shaburaba shacabka ku dhaqan magaalada madaxda dhaqaale ee Puntland magaalada Boosaaso ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ku-xigeenadiisa iyagoona tilmaamay in doorashada gudoonka cusub ee baarlamaanka ay tahay horaanta waa cusub oo Soomaaliya u dilaacay qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ku dhaqan oo la hadlay Somali Public Radio ayaa waxaan wax ka weydiinay aragtidooda doorashada gudoonka cusub ee baarlamaanka magacaygu waa Cabdirashiid Faarax Geesood dareenka anigu aan ka qabo ra'iisul baarlamaanka cusub عاصي عثمان جواري وارنتي دريم في عوي وسودويني أربع سودويني وعنين يعني معلنا وبروفيسور وقون له وعن فيله إنه ودك هو مرجعسي وارنتي سيفي عندي وشغير. الرحمن الرحيم مقعي أحمد ياسين صالح أنتي واحد كم يدنا هاي أيهنا ذا برير مثلان واحد كسبنا هاي قال حن مقالة بوساسو واحد هذا سودويني ندور شد قدوميها برلمانك runtii aad iyo aad ayay maanta aynu u nahay dad Soomaaliya oo macni maskaxdoodu ay dhamaantood ka wada guuxayso sidaynu horumar u gaari lahayn run ahaantii aad baan soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay guul ay Soomaali gaartay baan u arkaa tii ugu horeysay oo hadda koowsatay Maxamed Sheekh Jawaarina waxaan ahaa taageerayaashiisa soo dhaweynaya aad ugu sacabtamayay ma sha Allah guushaas waxay tahay raacdina horta aad baan Ilaahay ugu mahadnaqayaa dareen fiican dalka aad inuu socdo halkii sidii hore wax isku bedelaan rajawa mar Soomaaliya oo dhan waxaan u maleynayaa in Israa'iil qabaan Xuseen Xuska Somali Public Radio SPR Boosaaso